السلام عليكم ورحمة الله. waxaan maanta ka hadlayaa sheeko cajiib ah oo ah inay dhacdo in hal qof oo aysan cidna la dhalan haddana lagu tilmaami karo inuu mataan yahay iyo arrimo la xiriira arrintaas oo keenay haweeney carruurtii ay dhashay dawladdu tiri maadan dhalin iyo sababta keentay dad ku dhashay midabka labadooda indhood oo kala duwan balse marka hore aan ku bilaabo faahfaahin yar. jirkeenu waxa uu ka samaysan yahay unugyo aad u yaryar oo aysan ishu arki karin oo waa sida guryuhu uga samaysan yihiin dhagxaan ama bulukeeti. tusaale ahaan unugyada maskaxda oo neerfaha ah sidaan ayay u egyihiin marka microscope lagu fiiriyo. unugyadaas oo aad u fara badan ayay maskaxdaadu ka samaysan tahay. waxaa lagu qiyaasay tirada unugyada neerfaha ee maskaxda wax ku dhow 100 bilyan, hadda maaha milyan, bilyan. unugyada wadnuhuna sidaan ayay u egyihiin oo garaaca ama bugbugta uu wadnuhu sameeyo waa 2 bilyan oo unugyadaas aadka u yaryar ah oo boodboodaya, taasoo fududaysa in dhiiggu jirko dhan wada gaaro. saynisyahano ayaa qiyaasay tirada unugyada jirka bani'aadamku ka samaysan yahay, waxa ayna dhaheen unugyada jirku qiyaas ahaan waa 37 trilyan. haddaba unugyadaas uu jirku ka samaysan yahay kulligood waxa ay wadaagaan hal shay oo ah hiddasidahaaga ama DNA-gaaga. oo unugaasi ama beer ha ka yimaado ama wadnaha ka yimaado ama afkaaga ha ka yimaado, DNA-gooda ama hiddasidaha ku dhex jira waa isku mid oo qofku ka yimi kaliya ayaa iska leh DNA-gaas. taas macnaheedu waxa weeye in qof kale uusan kula wadaagin DNA-gaas. waa wax fududeeyay in loo adeegsado dambi baarista oo qofku hadduu meesha uu dambiga ka samaynayay uga tago unugyo ka mid ah jirkiisa sidii inuu weel biyo ku cabay oo kale, qofkuu ahaa si fudud ayaa lagu ogaan karaa. marka kaliya oo laba qof ay isku DNA yihiin ayaa ah qayb ka mid ah mataanaha oo ka dhashay hal ukun oo laba qof kala noqday markii ay ilmo-galeenka hooyadood ku jireen. waxaa kaloo loo adeegsadaa hiddasidaha in lagu ogaado ilmaha cidda ay hooyadiis tahay ama aabihiis. maadaama 150 aad hooyada ka qaadatay hiddasidahaaga, 150 ka soo harana aabbaha. laakiin sheeko yaab badan ayaa Mareykanka ka dhacday. haweeney la dhaho Lydia Fairchild oo 26 sano jir ahayd ayaa shaqo la'aani ku dhacday. marka waxa ay u baahatay caawimaadda dawladda. markii ay u tagtay xafiiska adeegga bulshada ama social service-ka ayaa waxa loo diray shaybaar si loo hubsado in saddexdii carruur ay sidatay ay iyadu dhashay. maalmo kadib ayaa loo yeeray iyadoo su'aalo adag la weydiiyey, ilmahan adigu maadan dhalin ayaa dhalay. haweeneydii yaab iyo ama kaag baa ku dhacay, waxa ay ku adkaysatay in ilmaha iyadu dhashay. waxaa looga jawaabay ma dhici karto sababtoo ah DNA badan ma wadaagtaan oo hooyadood ma noqon kartid. waxaana loogu cagajugleeyey in ilmaha laga kaxayn doono haddaysan sheegin cidda ay hooyadood tahay. haweeneydaas ayaa xataa keentay sawiradeedii markii ay urka lahayd iyo shahaadada dhalashada carruurteeda. laakiin waxaa loogu jawaabay DNA-gu been ma sheego oo carruurtaas maadan dhalin oo hooyo uma tihid. haweeneydan ayaa waxaa soo food saartay in ilmihii lagala wareego oo xataa maxkamad la soo taago iyadoo lagu tuhmayo inay ilmaha soo xaday oo ilmo aysan dhalin ay haysato. markaas ayaa xataa waxa ay u tagtay dhakhtarkii umuliyey kaasoo sheegay inuu maxkamadda ka caddayn doono in ilmaha iyadu dhashay. si bal aad loogu hubsado ayaa shaybaarro kala duwan baaritaan dheeraada loogu diray haweeneydii iyo carruurteedii. mar labaad waxa ay jawaabtu noqotay inaysan ilmahaasi dhalin. haweeneydaas qareenno badan ayaa xataa ka diiday inay u doodaan qadiyadeeda maadaama daliil cad oo DNA ah uu sugay inaysan ilmahaasi dhali karin. muddadii ay maxkamaddu socotay ayaa haddana ilmo afraad ay dhashay. markii ay dhalaysay shaqaale maxkamadda ka tirsan ayaa la joogay oo markuu ilmuhu dhashay isla markiiba baaris DNA ah lagu sameeyey. sidii saddexdii ilmood oo hore ayaa ilmahan afraadna uu ka duwanaa DNA-ga hooyadiis. markaas ayaa waxaa looga shakiyey in ilmo dad kale ay ilmo-galeenkeeda ku qaaday. wacado ay sameeyaan haweenka ilmo-galeenka ka jiran oo aan awood u lahayn inay uur yeeshaan. haween kale ayay lacag siiyaan si ay ilmahooda ugu qaadaan. sidaas oo kale inay samaynaysay ayaa looga shakiyey. haddaba qareenkii aqbalay inuu u doodo ayaa waxa uu soo helay sheeko kale oo ku dhacday haweeney arrintan oo kale ay qabsatay. haweeneydan kale ayaa waxaa la dhahayay Karen Keegan oo keliyaha ay ka xanuunsanayd una baahnayd in keli loo geliyo. markaas ayaa wiilasheedii ay isbaareen bal inay ugu tabaruci karaan kelida. muddo kadib ayaa dhakhaatiirtii haweentii ku dhaheen wiilashaan maadan dhalin oo isku DNA ma tihidin. baaritaanno kale ayaa lagu sameeyey, haddana waxaa soo baxday inaysan dhalin. markaas ayaa waxay u sheegtay in muddo ka hor qanjir dheeraaday laga gooyey. dhakhaatiirtii ayaa marka cisbitaalkii looga gooyey ka soo helay qanjirkii qayb ka mid ah. markii ay baareen ayaa waxay soo heleen inay isku mid yihiin DNA-ga carruurteeda. haddaba sidee bay ku dhacday in qof laba DNA oo kala duwan yeesho? xaaladdan oo kale ayaa waxaa la dhahaa human chimera. waxa ayna dhacdaa marka hooyada ay mataano qaado
mataanahaas oo ka dhashay 2 ukun oo kala duwan oo la bacrimiyey. haddii labadaasi ukun gaar u kala koraan waxaa dhalanaya 2 ilmood oo mataano ah. marar dhifa ayaa waxaa dhacda in ukumihii ay isku darsamaan oo uu hal cunug dhasho. maadaama 2 ukun oo kala duwan ay ahaayeen ayaa markaas qofkaas jirkiisa unugyada ku jira ay kala duwan yihiin oo waa sidii mataano hal qof noqday oo kale. haddaba haweeneydii maxkamadda la soo taagay ayaa waxaa caddaatay markii si aada loo baaray inay iyaduna xaaladaas oo kale ay ku dhalatay oo ay ahayd mataano hal qof noqday oo waxay u eg tahay in jirkeeda qaybna uu hooyo u yahay carruurteeda qaybta kalena habaryar u yihiin. maxkamaddii ayaa u qirtay in ilmaha ay iyadu dhashay. haddaba dadka xaaladan ku dhasha ayaa qayb badan oo ka mid ah aysan iska warqabin oo kama duwana muuqaal ahaan dadka kale. qaybtood ayaa laakiin isla markiiba la garan karaa. sannadii 1960kii gabar ku dhalatay magaalada Seattle ee cariga Mareykanka ayaa lagu arkay arrin cajiib ah. indhaheedu waa kala duwanaayeen. dhiiggeeduna 2 nooc ayuu ka koobnaa oo kala ah A iyo O, halka sida caadiga ah qof walba dhiiggiisu hal nooc yahay. gabadhaas ayaa ahayd mataano hal qof isku noqday. xaalad kale ayaa jirta oo ay dhici karto unugyo kala duwan inay jirka ku jiraan. 2012 diraasad la sameeyey ayaa haween dhintay oo maskaxdooda la fiiriyey waxaa laga soo helay jiinaad laga heli karo ragga kaliya. dumarkaas ayaa wiilal ay dhaleen unugyo ay lahaayeen ku hareen. hooyooyin badan ayaa ilmahooda intay ilmagaleenka ku jiraan unugyo ay leeyihiin u gudbaan dhanka hooyada. xaaladan ayaa waxaa la dhahaa microchimerism. mararka qaarkood ayaa unugyadaasi faa'iido u yeeshaan hooyada. waxaa jirta haweenay beerka uu kaga dhacay hepatitis oo qaybo ka mid ah beerkeeda uu burburiyey. waxaa la ogaaday in meeshii ay buuxiyeen unugyo wiil ay dhashay ka haray oo dhiiggeeda raacay beerkana fariistay. haddaba xaaladaha kala duwan ayaa dhici karta in unugyo kala duwan qofka gudihiisa ku jiraan marka laga soo tago dadka xubno dad kale ay leeyihiin loo geliyey sida kili oo kale. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar damba kulmi doono. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi